بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستاذ محمد خالد وربا إنه إذين شرحه برنامج كمرت waxa uu talagalay ardayda jaamacadda bariga Afrika kulliyadaha caafimaadka iyo health science-ka sida public health-ga iyo ardayda medicine-ka intaba waxa barnaamijkan iga codsaday inaan u soo duubo ardayda si ay ugu sahladaan maadada research-ka ay sameynayaan haddaba SPSS-ka software-ka la dhaho marka aad furtid oo loo isticmaalo in statistics-ka loo isticmaalo waxa uu ku siinayaa khaanadan koowaad khaanadan marka uu ku siiyo waxaa arkaysaa qayb laga furi karo example open haddii uu file hero meesha uu kugu jiray open ayaa tegaysaa haddii aad haddeer iyo mid cusub aad furaysidne waxaad tegi kartaa haddii aad mid wax ka bedelaysidne type in class oo meeshaas aad ku dhex daraysaa haddii aad existing query mid kugu jiray horay iyo iyadana wax ku daraysid kaas kala taaban kartaa waxa marka example haddii aad rabtid marka mid cusub inaad asaastid adiga oo maadaama aad data horay haddii aadan balahayn oo aad rabtid inaad bilowdid waxa kan okay baa leedahay create new baa leedahay halkan datada baalkan wuxuu u leeyahay marka laba qaybood data view iyo data editor marka data view-ga ayaa waxaad ku qoraysaa example variables-kaaga wixii hadhow halkaa kugu soo qormi lahaa ayaad halkaasi gelinaysaa waxaasoo dhan waxay noqonaysaa columns-kaas dhan variables-kaaga bay noqonayaan row-gaasna waxay noqonayaan participants-kii dadkii kaga qaybgelaya jawaabihii responses-ka ay bixinayeen haddaba saa halka uga jeedid column-kan wax kale kuma qoraysid waxaad data window-ga kale waxa hadhow kaaga soo baxaya waa oo columns-ka kuu noqonaya oo variables-ka ay kuu noqonaya waa waxa aad column-kaas aad dhex gelisid liiskooda maxaa yeelay halkan waxaad ka aragtaa SPSS-ku waxa uu leeyahay labada window variable view iyo data view marka data view-gaas hadhow waxa kaaga soo baxaya variable view waa ka ku qoraysay data view-ganne waa waxa soo qortay halkan maxay uga ekaanayaan example haddii halkan name ku qorno magacii qofka aan ku soo qorno halkan example hadhow marka halkan timaadid waxa ku soo qormaya meeshaas waxay ku noqonaysaa name marka waxaasoo dhan waxay noqonayaan columns-kaas oo dhan waa variables-kaagii hadhow si u ekaan lahaayeen example halkan waxaa ku qortay ka soo qaad waxaa ku qortay oo kale magacii qofka oo kale ku qori kartaa ID number-ka ay ku qori kartaa name baa qortay marka name-kan muxuu yahay name-kan ma xuruuf baa mise waa numbers taas marka type-ka nooca uu yahay marka text miyaa muxuu yahay seebuu kugu qormayaa ayaad dooranaysaa example kaasoo soo kale iska dooratid waxaad dhihi kartaa waa xuruuf buu noqon karaa wax kastoo noqon karaa kaas ku kooban ilaa 8 xaraf iyo waxbuu ka koobnaan karaa example marka intaa rabtid example 20 xaraf magac dheer oo kale haddaad rabtid inaad soo qaadatid okay baa leedahay marka name-ku maaha numbers laakiin wax kasta iskugu jiri karaa halkan marka waxaan dhan marka waa inaad specifications-kii dhan aad sii wada qortaa mid kasta oo ekaanaya name-kan marka example haddaad meesha name aad ku qortay waxaa soo gaabaysay oo kale ku qori kartaa meesha label-ka ku qoraysidna waxa weeye faahfaahinteedii ba qoraysaa example halkan label-ka waxa weeyaan name-kaas muxuu yuu ahaa magaciisa participants name oo kale dadkii ka qayb qaadanayay magacyadoodii maxaa yeelay SPSS-ka kale codes ayaa la isticmaalaa codeska marka qaarkood waa ilaawaysaa wixii aad usoo gaabsatay codekaas saas daraaddeed si aadan u ilaawin oo 20 sano kadib xitaa u xasuusan kartid waxa kan waxay ahaayeen halkanba marka waa inaad just need to be careful waa inaad ku qorataa marka name macnaha waxaan ka wadaaba leedahay participants name dadkii ka qayb qaatay datada tan study-kan magacyadoodii ayaa macnaha name-kaas ka wada ayaa leedahay marka waa qaab aad after xitaa 10 sano kadib datadaadii haddii halka kugu xareysan tahay aad kusoo heli kartid waxa awaagaas aad ka waday values-kaasna marka waxa la geliyaa name-kan macnaha qiimayaal miyuu ku fadhiyaa hadhow numbers miyaa u gelinaysaa maxaa u gelinaysaa name muxuu noqon karaa example marka iyada haddii uu wuxuu yahay magac iska caadiya oo kaleeto number iska dhigi kartaa halka iska tegaysaa haddii aad codes u samaysanaysid oo magacyo la yaqaano oo order leh waa samayn kartaa numbers ba u gelin kartaa halkaas example male number 1 iga soo qaad female number 2 iga soo qaad kuwaasoo kale markaad isticmaalto example genderka oo kale ayaa values-kaas box-ka isticmaali doona
maxaa yeelay waxaad sometimes code waa u samaysanaysaa qaybta ugu dambaysa measure waxa kan ma nominal ba oo ma numbers iyo wax isku aadan ba mise waa ordinal no ordinalka marka waxa weeyaan example waxaan haddii order wax isku daba xiga ay yihiin iyo waxaas oo marka halkan saa ka aragtaan data view-ga Windows-kiisa name-kii hadaya aan variable view ku soo qornay halkan nagu soo qornay marka magacyadan oo kala hadaan ku qorno Master Lee, Master Mary, Master Andy, Master Paul, Master Karim waxa magacyadii oo kale ayaa halka ku qoraysaa marka nameskeedan Master Maxamed wixii oo dhan baad ku qoranaysaa halkaas marka nameskii ayaa magacyadoodii macnaha rows-ki dadka ka soo bixisay ayaa qoraysaa marka halkaas waxaad hadda aan sameynay ku guuleysanay variable-kii koowaad inaan sameyno plus respondents-kii inaan gelino magacyadoodii oo dhan inaan gelino halkaas marka variable-kii labaad hadda waa inaan gelinaa ama question-kii labaad su'aasheenii labaad maxay ahayd example dadka da'doodii bay noqon kartaa waxay noqon kartaa dadkan shaqadii ay ka shaqeynayeen bay noqon kartaa macnaha su'aasha labaad oo questionnaire-ka kugu jirtay ayaa halkan ku qoraysaa su'aasha labaad ee questionnaire-keena oo date of birth su'aasha labaad oo kale noo ahayd date of birth ma numbers ba iyadoo inta badan waa date waqtiga marka maadaama date ay tahay waxaan taariikh numbers maaha taariikhda marka styles kala duwan bay leedahay wadamada styles kala duwan qaar baa day month year qaar baa space ama dash u dhaxaysiinaya qaar baa u dhaxaysiinaya slash qaar baa dhibic u dhaxaysiinaya sanadada marka styleka nooca aad isticmaalaysid waa inaad iska hubisaa taariikhda qaabka rabtid inay kugu soo hadhow ay kugu muuqato waa inaad styleskii because software-kan waa package wixii oo dhan ba ku dhex xaraysan marka waa inaad ka fikirtaa styleka nooca aad isticmaalaysid date-ka si hadhow computerka uu kula fahmo date-ka qaabka u gelinaysid maxaa yeelay qaab khaldan haddaa u gelisid hadhow waxa ku adkaanaysa inuu computerku fahmi waayo marka okay ka horeba iskaga dayso marka labelka marka date-kan marka waa maxay example waxa date of birth-gan maxaan dhihi karnaa DOB baa haday usoo gaabsanay laakiin halkan waa inaan ku qeexnaa example date of birth of participants ama participants date of birth saartid ba ku qoran kartaa DOB macnaha waxa soo gaabinay baa koodna date of birth waa taariikhdii dhalashada marka participants date of birth ku qori kartaa dadkii ka qayb qaatay barnaamijkan taariikhdii ay dhasheen marka qofka magaciisii taariikhdii oo dhashay qaabkaas oo kale variable-kaas haddii marka dadku ay hadda waxaa ka aragtaan data view-gii markaan tagnay date of birth-gii wuu noo samaysmatay marka Master Leo oo kale wuxuu dhashay 17 February macnaha qaabkaas ku qoranaysaa 1997 Martin ninka la dhaho oo kale wuxuu dhashay 24-kii bishii May iyadana 1969 Andy oo kale waxa leedahay wuxuu dhashay 21-kii June 1923 Paul ninka la dhaho oo kale wuxuu dhashay qaabkaas macnaha sanad date of birth-geedii oo dhan mid kasta aad ugu qoraysaa su'aasha labaad baan hadda ka jawaabnay marka saas u wadaynaa ilaa su'aasha saddexaad baan ka jawaabaynaa oo variable-kii kala xagga markaan ka soo qorano variable view-ga data view-ga imaanayna qaabkaas baa isku wadaysaa oo su'aalihii oo dhan datadaadii la rabaa inaad ugu dhawada dhex gashatid adigoo aan waxba aan ka tagayn meelaha missing-ka qofku ka tago oo questionnaire-ka qofku soo baneeyo oo kale khasab maaha in adigu halkan aad ku dhex qortid oo ka tag oo inaad ka tagtaa haddii meel faaruq ahayd maxaa yeelay halkan lama rabo been inaad buuxisid wixii qofku soo bixin waayo waa ka tagaysaa marka qaabkaas waa inaad ula socotaa qaabka step by step wax kan moqt marka tan saddexaad hadda aan buuxino variable-keena saddexaad maxaa example laga rabaa qofkan shaqadu ka shaqeynayo jobkiis marka jobka inta badan numeric baa gelin ka dhigi karnaa decimals-ka meeshaas khasab ma aha inaad wax gelisid maxaa yeelay waa marka points example qofka example shaqo hebel arday haddaa tahay 1 baa ka soo qaadan kartaa macallin 2 baa ka soo qaadan marka 1000 waxa uma baahnin example job maxaa ka wadnaa job of participants ma ka wadnaa dadku waxay ka shaqeynayaan participants-koodii oo kaleeto marka values-ka example halkan way meesha ugu baahnaan values-kaas inaan gelino code-kii aan u sameyno marka box-kan markuu noo soo baxo value number 1 macnaha haddii aan dhahno oo kale waxaan leenahay waxaan ka wadnaa student oo kale ama teacher wuxuu baa soo qaadan kara ama lecturer qofkan waa macallin
add baa leedahay markaas. Example number 2 qofka labaad spelling kaas ka saxi kartaa oo baa xitaa haddii wax spelling khalad uu ku saxaya. Number 2 macnaha haddii aan qoro waxaan ka wadaa qofkan waa arday student oo kale add baa add hay laawin add dialogue ma xasuusanaya hadda baa computerka marka waa inaa add dhahdaa si uu computerka hadda uu kugu xasuusto. Okay baa leedahay haddii mise wax maqnaayeen halka waa tii kartaa marka halka waxaan kartaa one lecturer hadhow qaybta kale markaan aadna data view-ga waxaan gelinaynaa 1 2 saas ku qori karnaa. Scale-ka halkan ma wax isku daba xiga mise waa wax order ahaa mise just scale baa iska dhigi kartaa. maxaa yeelay wax hadiisan order aysan ahayn maxaa la dhahaa ama nominal numbers waxa noocaas oo kale aysan ahayn waa iska din kartaa. marka waxaad dhigi kartaa example nominal kaas oo kale iska wada. Okay hadda qaybtii labaad oo soo buuxsanay oo jobkii dadka. Example number 1 markaan gelino waxay nooga dhigan tahay qofkaas waa lecturer. Number 2 waxay nooga dhigan tahay qofkaas waa student. qaabkaas oo kale taday wax ku fahanteen. waxaan rajeynayaa inaa intaas fahanteen. Example ninkan oo Graham ama ninka Geelle ama wax uu noqoto ama Karima magacyadii oo dhan qaabkaas ku soo qoraysaa sanadadiisaas oo qoraysaa jobskii one bay ahayn kuwa soo ma. Example number 2 number 1 oo dhan marka dadkaas waa lecturers shaqadoodu marka qaar baa arday ah soo ma Karima oo kale waa ardayad baa dhici karta inay noqoto soo ma. number 2 dadkaas hoos dhan marka iyagu waa ardaydii kuwa horena macallimiin bay ahaayeen marka dirra way isdhex geli karaan laakiin hadhow adaa order u samaysan kara oo gadaal ka samaysan kara marka column-kaas kalena saas u samaysatay haddaad boxka taawatid value labelskaas taawatid macnaha ay ka dhignayaan buu ku siinayaa lecturers haddii kalena kaas oo geysan maxaa yeelay halkii buu ka xasuustaa oo halkaas waa taaban kartaa. qaabkaas ayaad saartid baa yeeli kartaa maxaa yeelay already waa soo xasuusay waxa ka waday waxna u soo sheegtay. hadda waxaan xaraynay name-kii date of birth-gii dadkan jobs shaqadii ay ka shaqeynayeen intaasoo dhan baa xaraysay. su-aasha saddexaad baa hadda maraynay. su-aasha afraad oo kale haddaad rabtid inaad xaraysid example waxaa qori kartaa su-aasha waxay ku tahay bay ku xiran tahay friends dadkan asxaabtoodii oo kaleeto. asxaabta dadkan waxba 00 iska dhe maxaa yeelay wax decimal wax number is 100 waxaas meesha mataal. friends marka waxaa laga wadaa participants friends baan ka wadaa saaxiibadood oo kala kaleeta ama number of friends oo ku qoraysaa macnaha inta saaxiib leeyahay qofkaas. example John inta saaxiib leeyahay Ali inta saaxiib leeyahay Faarax inta saaxiib leeyahay. valueskaas marka iyadoo waxba taaban iskaga tag marka maxaan ka dhignaa haddaan halka tagno friendska halkaas aragtay inoo soo galeen marka friends qofka 5 friend qofka 2 friend uu leeyahay qofka waxba saaxiib ma leh qofka 4 saaxiib uu leeyahay qofkaas hal saaxiib qofka 10 saaxiib qofka 12 qofka 150 saaxiib macnaha dadka dhan numberska saaxiibadooda ay lahaayeen baad haddana soo wada qoraysaa. qofka 12 15 17 saaxiib dhalinyaro saaxiib buu leeyahay qofkaas uu leeyahay macnaheedu. hadda waxaan gelinay su-aasha koowaad dadka magacyadoodii ahaa column-ka labaad waa buuxinay oo date of birth-ga ah column-ka saddexaad jobskoodii waa gelinay friendskoodii waa gelinay macnaha su-aalaha questionnaire kugu qoran xabad xabad baad halka ka soo gelinaysaa saasaan usoo soconaysaa. halkaas kore waxaa kugu wada qoran spaceska waxa uu leeyahay file edit view data macnaha buu leeyahay. example file maxaa hoos imaanaya data new file markaa dhahdid data iyo syntax iyo qaybahaas dhan buu leeyahay. open markaa dhahdid open data open syntax qaybahaas dhan baa leedahay output. okay save-kii buu leeyahay oo file-ka waa save garaysan kartaa haddaa u baahan tahay. print datadaada waa daabacan kartaa haddii data hore meesha kugu jirtay laftigeeda wax samayn kartaa isoo saar hadday isticmaalaysa hadday save garaysatay halka wuu xasuusnaanaya xogaa sida wordka oo kaleeto optionkaas uu leeyahay sidii hore dadku ku xasuusnaanaya email ay ku jireen iyo waxaas oo dhan just waa hor fududaysa. failka editka wuxuu leeyahay undo meesha ka laabo hadday wax kala gelisay wuu ka laabanayaa. fine example qofkii copy cut
paste wixii dhan buu leeyahay waxaa soo koobin kartaa waxaa soo baalkin kartaa waxa uu leeyahay valueski laftigoodi column cusub ii samee variable cusub ii samee hadda insert variable cusub ama insert case marka waa respondentski okay macnaha example hadda variable cusub aan kusoo darnay variable cusub halkaas qaabkaas kugu soo baxaya hadda rabto iska tirtiri kartaa clear baa leedahay waxaad gelin kartaa row cusub baa soo gashan kartaa insert case baa dhihi kartaa hadda rabto isagana waa iska tirtiri kartaa right click baa leedahay markaasna clear baa iska leedahay okay failka edit wuxuu kale uu leeyahay find example qof baad halka ka dhex raadisay rabtaa inaad fiirisid daatadiisii find baad dhihi kartaa qofka magaciisa halka ku qoraysaa wuu ku soo helayaa optionka find oo kaamarada u egna waa tegi kartaa hebel find faarax ii raadi dhag wuu ku soo helay marka edit waxa kale uu leeyahay options khaanada buu leeyahay optionska marka waxa weeyaan marka koowaad inaad sii degdegsatid iyo si kugu ekaanayaan optionski iyo waxaas oo dhamna soo amraysaa viewerkan seebu maxaa optionska macnaha waa menu barki suu kugu ekaan lahaa iyo waxaas weeyaan khasab haddii waxaas uma wada baahnayd inaad wada fahantid fontigii hadda wax ka bedelaysid fartiisa oo ekaan lahayd bold miyaa ka qoraysaa italic miyaa ka qoraysaa waxaasoo dhan baa halka ka dhex dooranaysaa failka daatada laftigiisa wax badan baa ka fahmaysaa sida daatada waxa lagu sameeyo halkan waa failka meesha ku xareysanaysid file locationka waxaad gelin kartaa failka rabtid daatadaada hadhow inay kugu save garaysmato waxaa rabtaa inaad ku save garaysatid desktopka waxaa rabtaa xagee rabtaa daatadaada inay ku gasho halkaasi kuwaas dhex wareegaysaa waxaa kale oo u baahan inaad fahantid almost waa intaas marka waxaan rajeynayaa haddeer inaad si fiican u fahantay sida loo xareeyo halkan journal titlekan wuxuu ku qoraa example haddii aad syntaxkii uu kugu xasuusnaanayaa example dhowr sano kadib xitaa computerkaaga haddii aad weli iska formaat gareyn waxaa dhan halka ay kugu xareysnaan karaan kulligood akhyaari aad iyo aad baa mahadsantihiin intaas casho ku joojinaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu